kulankan oo ahaa mid ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Jubbaland ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kamid ah maamulka Jubbaland ururada bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada reer Jubbaland isla markaasna looga hadlayay sidii mashaariic horumarineed loogu fulin lahaa degmada Kismaayo iyo sidii dib u dayactir loogu sameyn lahaa wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Kismaayo. ugu horreyn kulankani waxaa daafuray wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish. hadda ka hor dadka qaar baa joogay qaarna hadda waxa weeye maanta uu koowa markaan laamiga sameeynay waad ogeydeen degmada Kismaayo dhowr mashruuc baa leenoo keenay waxaanu iskaga yotoonay laamiga lacagtu ay ugu yaraato wadadaas waa ogeydeen siday ahayd hadda waa la sameeyay laakiin sidii la rabay looma sameeyo waxaanu islahayn maalintii war lacagtan waa yartahay ma anfici doonto xafiisyo ma ku sameynaa xagga ma ku sameynaa laakiin codkeena la raacay waxaa noogu daran xilligaa biyo iyo meena la geliyo iyo meel la maro iyo gaadiidkii oo baaba'ay war waddada aan samaysano iyadii baan isku raacnay haba inoo dhaakeeyeene haddana wakaa maanta waa maraynaa oo laamigii Kismaayo waa la dhex maray. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajile. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. shirkan wuxuu ku saabsan yahay sida ku qoran boorka ku dhagan darbigiisaba waxa wada qolo la yiraahdo TIS Plus waxayna ku saabsan tahay barnaamijyadii hore oo hay'adda TIS ay ka fulisay Kismaayo sida oo ay ugu weyneyd wadada tan magaalada dhexmarto ilaa airportka ilaa jaamacadda ah bal wadadaas xaaladeedii maxaa ka qabsoomay maxaa dhiman maxaa ka khaldamay maxaa sax u baxay barnaamijka dib u eegistaana waa ku jira waxa kale oo ku jira magaalada Kismaayo maxaa hadda priority-ga ama waxa ugu horeeyo hadda baahideeda ah wadadii ruuxeedii miyaa qaybaha ka dhiman miyaa lagu noqonayaa ma wax cusub baa la keenayaa waxaa loo baahan yahay wixii hadda mudnaanta koowaad u leh magaalada Kismaayo in la sheego. 2 maalmood baa shirkaas soconaya 2 maalmood waxaa la rabaa dadkan reer Kismaayo inay sheegaan wixii ay doonayaan in loo qabto oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ah sida ay u kala horeeya wixii hore warbixintoodii wixii hore loo qabtay warbixintoodiina waa la sheegaya marka barnaamijka shirku si kastaba ahaatee kulankan looga hadlayay sidii mashaariic dhanka wadooyinka loogu sameyn lahaa magaalada Kismaayo ayaa wuxuu socon doonaa muddo 2 maalin. aadan maxamed xasan aadan yare Somali Channel Kismaayo.